waxa la yiraahdo waxaan ku jirnay waxaan soo diray trade-ka oo dahabka sida u jeedaan waxaynu kaga dhacay stop loss aniga stop loss waan ka saaray markuu meelaha marayay ayaan stop loss ka saaray adigana waxa laga yaabaa inaadan ka saarin ama aad ka saartay trade-kan haddii aanu ka hadalno sidaan ku qaadanay cashirkan wuxuu ku saabsan yahay caawa sidee dahabka loo xisaabiyaa bibiskiisa ma ka trade garayn karaa dahabka haddii aan nahay qof mataqaanaa cusub oo ku cusub proxy marka waxyaabahaas oo dhan ayuu mataqaanaa cashirkeenu ku saabsan yahay iyo trade-kii aan soo dirnay inaynu falanqayno iyo sidii aanu ku qaadanay in lay maqlaan filayaa waa i maqashaan baan filayaa okay waxa la yiraahdo trade-kan sidaad u jeedaan ardaygaas wuxuu leeyahay codka ma maqlo waan intiina kale way maqashaan soo ma si fiican waan ku maqalnaa okay okay trade-ka halkaas ayaan ka soo galnay sidaad u jeeday waqtigu waa soo koobaynaa waqtigu nagu yaryahay waxaanu ka soo galnay halkaas waxaanu ku qaadanay trade-kan waxa la yiraahdo laba structure ayaa laga soo celin karay marka hadda halka saac aad joogtid oo aad saartay Fibonacci-ga laba structure ayaa laga soo celin karay suuqan laba structure midkood ayaa laga soo celin karay structure-ka koowaad waa kan oo mataqaanaa waxa la yiraahdo 0.38-ka haddii aad diilin dhigato ayaad si fiican u arki kartaa horizontal line haddii aad dhigto waxaad arkaysaa meeshaas inay structure tahay suuqa laga soo celin karo waa qodobka koowaad markii aan taxliilinayay suuqu wuxuu marayay halkan ayuu marayay markii aan aniga suuqa taxliilinayay halkan ayuu marayay marka laba mid ayaan iri ama suuqa waxa laga soo celin karaa 0. waxa la yiraahdo 5-ka ama waxa laga soo celin karaa 0. waxa la yiraahdo 38-ka ama 0.618-ka marka suuqu markuu halkaa marayay ayuu bay qaatay markuu bay qaatay candle dheer oo waxa soo jiitay sell ah kadibna halkaas wuxuu ka sameeyay candle-kii mataqaanaa waxa la yiraahdo candle-lada wuxuu ka sameeyay candle-lada suuqa kala wareejiya oo engulfing candle-ka iyadoo xaaladda halkaa marayso ayaa waxa dhacday waxaynu ku xisaabtamin oo mataqaanaa aynu ku ilduufnay suuqan marar ayaad ilduufaysaa waxaynu ku lacagta USD lacagta euro USD haddaynu tagno euro USD ayaa bay qaadatay oo dahabka iyo euro USD inay isku xiran yihiin way ognahay marka euro USD bay ayay qaadatay oo mataqaanaa bay waalan ayay qaadatay sababtana waxa kalifay haddii aynu mataqaanaa tagno DXY oo kale DXY no sidaad u jeeday sell waalan ayay qaadatay lacagta dollarka ayaa shalay waxa ka jiray newskaas marka waxa la yiraahdo 4 galabnimo ayuu soo baxay inayna trade-ka ka hor inaan soo dirnay ayaan filayaa 4 galabnimo sidaas inay ahayd ayaan jeclahay marka waxyaabaha ku ilduufnay waxa ka mid ahaa
casharkan ka horreeyey waxaan sheegay in mataqaanaa oo aan soo dhigay youtube-ka bara media in lacagta dollarka uu ka jiro news oo waan la socday inuu news ka jiro waana eegay saa daraaddeed mataqaanaa maskaxdeeda way ka baxday waxa kale oo mataqaanaa aanan eegin euro USD marka dahabkaas taxliilintii aan samaystay gambaleel ayaan ku xirtay al-aarmiga markuu ii soo yeeray ayaan suuqii yani mobilka ka galay okay marka sidaas haddii ay ahayd suuqu wuxuu qaatay buy ayuu qaatay sababaha aan kuu sheegay ayuuna u qaatay bayda USD oo dollarku saameeyey DXY oo hoos u socota oo haddii DXY hoos u socoto waxay naqaanaa lacagaha dollarku inay sell aadaan lacagaha ay dollarku horeyso kuway u dambaysan inay aadaan yani inay buy aadaan euro USD markaas newskii soo baxayana wuxuu ahaa sell ayuu ahaa oo news casharkii aan ku soo dhigay baramidi ayaan kaga hadlay dollarka in news sell uu ka soo baxayo maanta marka sell ayuu ahaa oo mataqaanaa negative ayuu ahaa marka maadaama sell ahaa oo lacagaha dollarka oo dhan ay sell aadayaan lacagaha dollarka u dambeeya oo dhanna waxay aadayaan buy ayay aadayaan marka su-aasha ku xigto aan ka hadlayna ayaa waxay tahay waxa ku xigo aan ka hadlayna waxa weeye lacagtan x AU USD maxay tahay waa dollar iyo dahab marka goldiga haddaan tagno waxay u kala duwan yihiin waa isku mid sababta marka tan isticmaalayno maxay tahay mar walbana aan taa usoo diro barokarada qaybtood ayaan dahabka laga trade garayn karin marka real account ku trade garaynaysid goldi kama helaysid oo kuma trade garayn kartid saa darteed inta badan barokaradu lacagta dollarku waa lacag mataqaanaa caalami ah waxa lagu qiimeeyaa dollarka ayaa lagu qiimeeyaa waxyaabo badan ayaa lagu qiimeeyaa suuqyada kale oo dhan ayaa lagu qiimeeyaa mar ayaynu ka hadli doonaa marka waxa la yiraahdo waa dollarkii iyo dahabkii oo la isku qiimeeyay markaas waa isku mid haddii aad u fiirsato labadooda kanaladoodu waa isku mid wuxuu kan sameeyay ay kan sameynayaan laakiin sababta aan kan taxliilinta ugu sameynaya ayaa wuxuu yahay dadka inta badan barokaradoodu dahab keliya gold real account kuma geli karaan dadka qaybna way ku geli karaan marka waxa loo badan yahay goldigan ayaa loo badan yahay sidaas inaan la socoto waa muhiim haddaynu marka 4 hour ka tagno waxaan oo dhan haddaan kaa saaro waxaan oo dhan aan laga saaro ka iga dhigan hal mar aan duweyde waxaan naga saarayaa qayb ka mid ah ayaan naga saarayaa waxaan saarayaa tan ayaan saarayaa okay waxaan tegaynaa 4 hour-ka markii aan 4 hour-ka tagno waxaan halkaa ka aragnaa horta intaadan 4 hour-ka tagin wiiga tag wiiga waxaan ka aragnaa suuqaasi inuu muddo uu ahaa suuq ku socday yani buy suuq muddo bay ku soo socday kadibna imaaday siiladaas ku soo dhawaaday kadibna laga celiyay ayaan halkaa ka arkaynaa markaynu dheeriga tagno ayaa arkaynaa in suuqa la celiyay oo halkaas uu ixtiraamay meeshii u sarreyso yani gaari karay wuu gaaray kadib suuqaasi sabab uu buy ugu sii socdo male
haddii aynu dheeliga tagno waxaynu arkaynaa suuqaas inuu buydiisi uu dhammaystay kadibna uu sameeyey calaamadaas baatanka ah inaan halka ka aragto ayaan u malaynayaa oo kandhalada mataqaanaa kandhalada yaanan dhihin yani double top inuu sameeyey oo m button uu halka ka sameeyey inuu labadaas button sameeyey kadibna suuqii uu soo kala wareegay uu sell aadi rabo haddii aynu tagno 4 hourka waxaad arkaysaa inuu suuqu uu dhaqaaqay laba move inuu dhaqaaqay ayaad arkaysaa halkaas ka arkaysaa inaad arki karto ayaan filayaa 1 iyo 2 waxaynu ka sugaynaa 3 ayaynu ka sugaynaa kadibna suuqu kala wareego oo hal move ayaa ku dhiman way macnaheedu marka halkaa move oo ku dhiman si aad u heshid waa inaad saarsataa fiibka waa inaad saarsataa oo ka soo bilowdaa meeshaas madaxa la soo qabansiisaa ilaa iyo hoos marka saa u saarto haddii aad structure-ka saxda ugu xooga badan wuxuu ku beegan yahay haddii aad hadda gadaal fiiriso oo saa u fiiriso saddexda mar haddii aad diilin dhigato mid kasta aad diilin dhigto yani structure-ka u xoog badan kaas ayuu ku beegan yahay 0.618 hadda haddii aan halka saac tagno saa u soo dhaweyno waxaad arkaysaa meeshaan 618ka inaad aragtid ayaan filayaa lambarka 618ka diilinta binkiga ayaa inoo taal inay structure tahay oo halkaan fiiri waxaad arkaysaa suuqu inuu bay ka aaday inuu waxa la yiraahdo mar kale suuq bay ka aaday halkaan sidoo kale inay halkaas supply zone inay ka ahayd mar kale oo suuqu sell ka aaday halkaan inuu suuq bay ka aaday yani waa structure caalami ah oo suuqu mar kasta haddii aad hoos u raacdo u fiirsa halkaan suuqu imise ayuu ka daatay waa meel caalamiya oo suuqu yani markii uu soo gaaro labada dhinacun uu daadanayo haddii aad gadaal u sii raacdo waad arkaysaa mar kasta waad sii arkaysaa okay haddaynu marka intaas kaga soo laabano structure-ka inagu ma aynan qaadan oo kan ka sokeeya ayaynu qaadanay sababtoo bay sidaas u dheer oo mataqaana bullback ah ma aynan mataqaana kuma xisaabtamin waxaan ku xisaabtanay structure-kan kale oo mataqaana 38 ah markuu suuqu marayay marka kaas ayaynu ka soo galnay suuqa oo suuqu markuu diilinta cad marayay ayaynu hoos u soo galnay kadibna suuqii haddeer waxaad aragtaa in laga soo celinayo 618 oo structure-kii aan kuu sheegayay in suuqa laga soo celinayo sidaa halkaa ka arki kartid marka waxaan filayaa aniga stop loss waa ka saaray suuqa in la soo celin doono badanaa anigu dahabka stop loss ma geliyo markii aan hubo inuu jihadiisii yani dhinaca kale u socdo soo dhammaystay stop loss ma geliyo ha iska laalaabto isaga ayaa soo laaban doona dadka aan stop loss u soo qoray stop loss-keennana waxay dhiganay halkaas kalalka newska ayaana kaga dhuftay oo carada dheer oo waxaan ka saraysiinay structure-ka 618 ayaan ka saraysiinay inaa intaa fahamtay ayaan filayaa haddaa stop loss-ka aad ka saartayna waad ka saartay waxaan kaloo ku siinayaa talo ku saabsan dahabka ma ka trade garayn karaa haddii aan ahay qof cusub dahabka ma ka trade garayn karaa su-aasha ugu muhiimsan waa taas dahabka waan kuu soo diraa laakiin waxa muhiim inaan kuu sheego markii hore inaan kuu sheegay dahabku lama mid aha lacagaha kale yani marna waa ka fiican yahay marna waa ka xun yahay mar waa ka fiican yahay wuxuu uga fiican yahay
يعني lacag fiican ayuu ku siinaya oo dhaqaaq fiican ayaad ka helaysaa dhaqso ayaad uga helaysaa marna waa xun yahay markii akoonkaagu yar yahay يعني dhaqso ayuu minus ku gelinaya oo degdeg ayaad minus ku helaysaa marka sidee loo xisaabiyaa wey su-aashu dan waxaan dhan iska tirno sidee loo xisaabiyaa dahabka bibiskiisa dahabka bibiskiisa haddeer halka hadday aynu soo dhigano diilin halkaa waxaa noo soo dhigtaa diilin halkan kale waxaa noo soo dhigtaa diilin kale tan kalarkeeda ayaan waxaan ka dhigaynaa binki ka dhig labada diilimood tan hore ayaan laba jeer tigtig siinaynaa kadib waxaan tirtiraynaa lambarkan u dambeeya ayaan tirtiraynaa halkan waxaan ka dhigaynaa 0 ayaan ka dhigaynaa halkaas 5 kaas 0 ayaan ka dhigaynaa halkaana 0 ayaan leenahay waa tusaale ahaan waxaa weeye 17.05 wey soo ma diilinta kale ayaanu imanaynaa markaas halkan waxaan ka dhigaynaa كدينا تدويت 1 0 6 كان واحد كدينا 0 0 اوكي وفير صلاه دي المود هل بوينتي ايا ومحيا 1 بوينت هدي ان marka hadda halka daqiiqo ku geeyo halka daqiiqo ayaa si fiican ugu arki kartaa labada diilimood waxa u dhaxeeya u fiirso waa 17.06 iyo 17.05 يعني hal بوينتي ayaa u dhaxeeya halka بوينتي oo u dhaxeeya waa يعني lacagaha kale waa hal biib way lacagaha kale laakiin dahabka waa meeqa biib dahabka waa 10 biib halka biib waa 10 biib waa 10 biib marka ilaa boqol wax ka yar labada number oo horeeya la xisaabtaa waa 10 biib way halka biib يعني u fiirso marka wax muhiim ah inaad fahanto oo halkan aan halka daqiiqo ku keenay يعني halka daqiiqo suuq marka uu soconayo ma wax yar ma wax weyn buu socdaa يعني intaas hal mar soo ma boodo oo halka daqiiqo marka joogtid يعني halka daqiiqo inuu intaa boodo wax weyn kuma qaadanayso oo hadeer halkan ayaan ba ka arki karnaa inta uu ku dhaqaaqi karo tobanka biib halkan hadda ma soo saarayo waxaan soo haddii aan soo qaadano mastarada ayaan arki karnaa u fiirso halkaas meeqa ayuu ku dhaqaaqay hal daqiiqo ayuu ku soo saaray samar hal daqiiqo ayuu ku dhaqaaqi karaa intaas yani suuqu inuu labada diilimo dhexdooda diilinta bankiga iyo diilinta cad inta u dhaxaysa oo 10 biib inuu 10 biib dhaqaaqa yani hal daqiiqo ayuu ku qaadan kartaa inaad taa fahantaa muhiim ah intaas inaad fahantid ayaa muhiim maadaama hal daqiiqo wax ka yar uu ku dhaqaaqi karo 10 biib marka uu dhaqaaqayo diilintan haddaan idhaahno 6ka aan tirtirno oo aan ka dhigno halkaas 6 soma tana 5 soma waxaan ka dhigaynaa halkan ayaan waxaan leenahay 10 ayaan leenahay 17 ayaan leenahay tana waxaan leenahay 17 ayaan leenahay
يعني toban lagu dhuftay toban waa meeqa waa boqol soo ma tobankii biib wuxuu dhaqaaqayaa boqol biib dahabku tobankii biib ama tobankii mataqaanaa lacagaha kale tobankii biib isagu wuxuu dhaqaaqayaa boqol biib ayuu dhaqaaqayaa inaad saa u fahantay ayaa muhiim ah oo waxa la yidhaahdo haddii aad tahay marka qof cusub oo ku cusub waxa la yidhaahdo suuqan dahabka haddii akoonkaaga ay lacag yar ku jirto fadlan dahabka ka trade garayn ee lacagaha kale ka trade garayn si aan mataqaanaa minus kuu gelin maadaama dahabku yahay lacag degdeg kuu gelin karo degdegna aan ugu faa'iidi kartid anigu mar walba dahabka ayaan isticmaalaa waa best trade wey waa tradeka ugu fiican ee laga trade gareeyo waxyaabaha ugu fiican oo laga trade gareeyo ayuu ka mid yahay dahabku waqtiga hadday noqoto oo aad waxaagii mataqaanaa inoo kala jiidaada aad ka helaysid haddii ay noqoto dhaqaaq corruption kiisu ma badna weji bedelashadiisuna ma badna inaad taa fahanto ayaa muhiim ah marka fadlan adiga haddii akoonkaaga ay lacag yar ku jirto $100 oo kale dahab ha ka trade garayn lacagaha kale tradeada kale aan soo diro ka trade garayn maadaama boqolka eero uu degdeg kaaga dhammaan karo ama kaaga gudan karo inaa intaa fahantay ayaan filayaa tradeada dahabka aniga waa soo diraa sababtoo ah waan ka trade gareeya wax kastoo aan ka trade gareeya waa inaan kuu soo diraa adiga ayaa marka choiceka iska leh inaad qaadato iyo inaad iska dayso inaad qaadato iyo inaad iska dayso choiceka adiga ayaa iska leh inaad fahantay ayaan filayaa bibiska sida loo xisaabiyana inaad fahantay ayaan filayaa oo labada dilmood 10 boonti ayaa u dhexeeya 10ka boonti 100 biib ayuu dahab ku jari karaa waa intaa yar ee kan halkaa taagan yahay haddii uu halkaa tago oo halkaa ka dhaqaaqo oo halkaa tago yani waa 100 biib sidaas ayuu 100 biib ku jaray weeye macno marka uu si dhaqaaq degdeg ayuu qaadanaya intaas inaan fahantay ayaan filayaa ma qof ayaa jira doonaya inuu su-aal weydiiyo ama codka laga qaado su-aal ku saabsan casharkan su-aal ku saabsan oo aan ka baxsanayn maadaama waxa la yidhahdo casharo kale ay dhiman yihiin lagamana yaabo inaad su-aasha casharada soo socda aad weydiisay fadlan soo qor aniga ayaa mataqaanaa su-aal qaba ama mataqaanaa trade aad qaadatay inaad noo sharaxdid okay waxaan u malaynaya inuusan jirin qof waxay noo sharxaya ama mataqaanaa aan su-aal qaba intaas ayaan ugu gudbaynaa asxaabay inaad fahanteen ayaan filayaa dahabka iyo mataqaanaa waxa la yidhaha sida aan ku qaadanay iyo sida diidkiisa loo xisaabiyo aad bay muhiim u tahay qodobkaasu wax su-aal qabo male miyaa oo qoraya ninkaan okay asxaabi intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa casharkeenna tan iyo intaan ku kulmay doono casharkan cashar la mid ah waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo